waxaa haddaba jira habsuugaaneed maansayahanada Soomaalida qaarkood ay marar badan tixahooda ku curiyaan kaasoo habka sarbeebta loo yaqaan. maxay kolka sarbeebi tahay? waa hadal ama tix ah ama tiraabfaneed ah oo sida loo yiri si aan ahayn loola jeedo. waa duur xulo, waa hadal ujeeddo qarsoon leh, hadal daboolan oo si la wada garan karo aan loo dhihin. adiga oo dhab ahaan arrin ama qof u dan leh markii aad ka hadashid qof ama arrin kale ayaa lagu oran karaa hebel wuu sarbeebtay ama si sarbeeban ayuu hadalka u yiri ama waa tix sarbeeban oo aan si fudud loo furfuri karin. waa sarbeebo, waa ujeeddo aad shareerayso oo aad rabto dadka qaarka aad ula jeedaa inay gartaan inta kalena ay ka daahnaato. waa hadal dhowr sababood midood ku yimaada sida sariigta, baqdinta, wax tusaalaynta iyo noocyada kala kaanka ah ee halxiraalaha. bal haatanna aynu tusaalayaal u doonanno maansayahanadii hore ee Soomaalidu sidii ay u sarbeeban jireen si aan u ogaanno dhabtii waxa ay sarbeebtu tahay markaynu suugaanteenna quruxda badan dhex muquuranno. qamaan bulxan oo ahaa gabya ay Soomaalidu maansadiisa aad u jeceshahay, tixihiisa ku halqabsato kuna dhaadato ayaa waxaa la yidhi beri gabar guursaday. waxay ahayd gabar aad u bilicsan oo quruxda in badan laga siiyey looguna roonaaday. ha yeeshee kolkii ay gabyaaga muddo wada dhaqmeen ayuu malaha ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxda dhaafsiisan. fudayd uu u bogi waayey iyo hadba meel u kicid ayuu ku arkay kana biyo diiday. isaga oo sidaas gabadhii u saluugsan ayaa dhalaartii dambe waxaa u soo hargalay iyada walaalkeedoo sidii ay caadadu ahayd yaradoon ah. qamaan wuxuu goostay inuusan gabadhaa wax yarada ka bixin, ceebaheeda inuu walaalkeed caddaan ugu sheegana wuu ka sariigtay. kolkaas buu u sarbeebtay. isaga oo iyadii ka hadlaaya asii baal goroyo iyo faras ugu sarbeebanaya ayuu seedigii tix gabay ah ugu warramay. wixii uu ku tashadayna si asluub leh ugu sheegay. wuxuu yidhi baal goroyo waa lagu ogaa inuu bidhaamaaye berbere maalintuu tegey waxaa bi'iyey miisaane bid koray ku tahay shaygii fudud beesad lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaaye wada ba'an bini aadan kaad waaye barataye. dadku waayadaas murtidhaari buu u badnaayay ninkii yaradoonka ahaa. kolkuu tixdaa maqlay ayuu isaga oo aan erey soo celin dib isaga noqday. maxaa yeelay hadduu hadal wax dheef leeyahay loo dhammee. waa taa sarbeebtu. ninbaa isna haweenay uu qabay furay, waxayna ahayd waagii uu furiinku ceebta ahaa ee uu dhulka Soomaalida sida aadka ah ugu yaraa la iskuna ceebin jiray. rag badan oo qaraabo iyo wadayba ay ahaayeen ayaa ninkii eedeeyey iyaga oo aan u dhabagelin una kuurgelin sababta ku qasabtay inuu afadiisa ka maarmo. wuxuu ka xishooday inuu sababta runta ah dadka u bandhigo, sidaa darteedna wuu iska aamusay. markii loo garaabi waayey oo uu arkay in dharaar noolba eed lala daba taagan yahay ayuu sababtii diirka inta ka qaaday weliba gabay ku sheegay. markaas buu yidhi gacalkeed ha weydee hadday geenya kaa hebado asuu haayir nooliba yaqaan heeladkay mirato wiilkii hanqaadaba hadduu harabsadee fuulo heensaha inaad kala baxdaa soo hal gara maaha. waa maxay sababtu? waa gogol dhaaf. miyuu carabka ku dhuftay? xaasha, waa maya jawaabtu. wuxuu ka hadlay geenya hebad noqotay oo barbaarkii soo gaaraba ogol, hadalkiina wuu dhammeeyey. waa hadal asluub leh oo sidii kale oo loo sheegaaba ay Soomaalidii hore ceeb ku ahayd. waa taa sarbeebtu. tusaalaha kale ee maansada sarbeeban ku saabsani waa mid suugaanteenna aad caan ugu ah. waa tixa dhex maray laba nin oo ka mid ahaa raggii reer ciideedka ahaa ee maansada looga dambayn jiray lana kala oran jiray Saahid Qamaan iyo Feetin Maxamed Shirwac. saahid ayaa wuxuu guursaday inan dhowr iyo 10 jir ah oo aan weli xilligii guurka gaarin, si reer loo dhaqana aan haba yaraatee waxba ka aqoon. waxay ka sii dartay markii ay inta umushay kala daadatay oo dooc ka garan weyday sidii ay u kala agaasimi lahayd saygeeda, xoolaha, maamulka aqalka, ilmaha yar iyo nafteeda intaasba. Saahid Qamaan saluug baa galay, wuxuuna jeclaystay reerihii markii hore siiyey ee yaradka kaga qaatay hadday gabadhan gabar kale ugu bedeli lahaayeen. damacaasina wuxuu malaha ugu muuqday wax yaraha fool xun oo aan carabka lagu ballaarin karin.
maalintii dambe ayaa waxaa shax dhigtay saahid qamaan iyo feetin maxamed oo inanta uu saahid saluugsan yahay ay ilma adeer ahaayeen iyaga oo shaxdii cayaaraya ayuu saahid sheedda ka arkay gabar gashaanti ah oo midda u dhaxda ay walaala ahaayeen waxay ahayd inan madax bannaan oo nafteeda iyo bilicda oogadeeda oo qura xil iska saaraysay markeedii horena qurux u dhalatay gabadhaas oo dumaashidii ahayd ayaa saahid laabtiisa ku dhacday markaas buu feetin gabay sarbeeba kula hadlay shaxdii dusheeda wuxuu yidhi gammaankiinna badan feetinow gobolba waacayne qaar baan ka goor iyo ka goor gulufka daynayne qaar baan garqaadkana la barin gaalibna aqoonne gembi dhacay garmaamiyo rogaal la isku soo gaaray kol dabaaldeg loo soo gurmaday goodi iyo fuulmo ninba geeyaduu agabaruu golaha keenaaye isgaran weynay neefkaa tolow igu gargaarteene gabxalaguushakaaliyow duqii gaabi orodkiiye gacalnimo haddaad naga rabtaan go'aha noo doorsha haddii kale sidaad noo gasheen yaa inoo godob ah kanaan degay si daboolan oo anshax huwan ayuu dibadda u soo dhigay wixii muddaba ka guuxaayey wuxuu ka hadlay gammaan badanoo u soo hoyda reerihii ay xididka ahaayeen isaga oo u jeeda hablahooda quruxda leh ee weli uu damacu ka hayo wuxuu ka hadlay gammaankaa badan sange uu isagu ka helay haatanse ka dakaamay kabtigiina gaabshay isaga oo u jeeday gabdhahaas inantii kaga soo aaday ee uu saluugsanaa ugu dambaystii wuxuu muujiyey inuu godob tirsan doono haddii aan sangahaas laga doorin isaga oo u jeeday afadii uu markaa qabay in laga beddelo oo walaasheed la siiyo 10 meeris oo aad u dhisan ayuu doodii iyo dacwigiiba ku idlaystay waxaana la qabaa haddii uu si kale u sheegi lahaa inuu eedoobi lahaayo gogol loo dhigan lahaa lana yakayn lahaa feetin maxamed nin hadal sheega ma ahayne durbo wuu gartay wixii saahid ka guuxaayey isla goobtii ayuu isna kaga jawaabay wuxuu ku dooday afada saahid ka cabanayaa inay tahay tu yar oo hadda dhow uun timaha loo dabay loona baahnaa ninkii guursadaa inuu layliyado wax u sheego u dulqaato oo carbisto tan iyo inta ay reerka ku filaanayso marwo gurina ay noqonayso maxaad saahidow noo sheegan haddii aad adigu garan weyday tabta loo tababaro hablaha yaryar ee markaa la soo guursado ayuu feetin doodiisii ku soo koobay hase ahaatee sidaas qayaxan uma uu sheegine sida tan daboolan ee sarbeeban ayuu u yidhi hal garow shalay saahidow gobi la yeedhaaye horta garab wegliil waa xun yahay la isgaraaxaaye nin gammaan yaqaanaa dhal waa gaasa bixiyaaye waa 12 gujiraan fuulankeed geline waa kaagankeedii guryaha looga caws guriye hadduu nadigu gubo neef yaru waa jaragariiraaye maxaad nagu gelaysaa haddaad fuulma garan weyday kanaan degay